السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرين جنال كمركز السود واضح أدي هذا وما هتسنتهين وأربعة وأنا شنطة بشكو بتواناد نوفمبر سنة كلا بدأ كون إيه شن يلا باتنك وقال كانوا محاربين إن ذكول وذاقه دور الشذي دق مجال مينيابوليس ترنتي عددك وإيسوق بجبودي دد فرا بدن أيا وحي إليه إنك عدان كها جاكوب فري أيا جوليستي laakiin weli cid guuleysatay ma jirto walow isagu codadka uu sareeyo laakiin cid guuleysatay ma jirto Mareykanka doorashooyinkiisa waa qaabab kala duwan ayaa lagu kala guuleystaa doorashada madaxtinimada waan ogeyn codka dadka shacabka laguma guuleysto electoral college ayaa lagu guuleystaa wadankan waa federaal gobol kastana sharcigiisa doorashada isaga ayaa samaysta marka hadda gobolada qaar waxa ay leeyihiin wax la yiraahdo ranking Joyce Floyd wax la yiraahdo ay leeyihiin sida hadda Minneapolis ka jirto kale magaalooyinka ay kamid yihiin Bloomington, Minneapolis, Minnetonka, St. Louisburg iyo sidoo kalena St. Paul shantaasi magaalo ayaa waxa ay leeyihiin ranking Joyce Floyd wax la yiraahdo haddaba arintaasi ayaa lagu kala guuleysan doonaa wareeg labaad oo doorasho ayaa la aadayaa sidee Umar Fatix iyo Jacob Frey ay ku kala guuleysanayaan caawa labaduba waa ay sheegeen in cid guuleysatay aysan jirin markii taageerayaashooda ay la hadlayeen tirintii codadka waa ay soo gabagabowday Jacob Frey ayaa sareeya laakiin duqa magaalada wali ma noqon oo guushu isaga ma raacin haddaba arintan sidee ku dhacday muxuu yahay ranking Joyce Floyd ka ayaan rabaa inaan idin la wadaago oo aan idin sharaxo xogaa waxa laga yaabaa inaad ku wareertaan laakiin bal ila soco sida ay natiijadu ay noqonayso iyo sida lagu kala baxayo horta doorashadii shalay la dhiibtay natiijada markii inta codadkii la tiriyay ku dhawaad 100% waxa hadda sareeya Jacob Frey waxa uu helay 61340 oo u dhiganta 41.7 meel qaar 42% ayuu codadkii helay Umar Fatix ayaa ku xiga 46510 31.6% isagana 32 ayaa meelaha qaar ay leeyihiin boqolkiiba inuu helay marka musharaxa saddexaad waa ninka la yiraahdo Diwan Davis oo isaguna 20383 cod helay 13.9% ama 14 ba iska dheh waxa ku soo xiga ninka la yiraahdo Jas Hampton oo isaguna 15305 cod helay 10.4% ayuu helay marka waxa guuleysan lahaa hadii musharaxiintan mid kamida uu heli lahaa 51% isaga ayaa doorashadii ku guuleysan lahaa laakiin sida muuqata Jacob Frey oo ugu sareeya 41% 42% aan iraada ayuu helay marka 50kii xitaa wali ma uusan gaarin taasi macnaheedu waxay tahay musharax guuleystay ma jiro waxay noqonaysaa marka ranking Joyce Floyd wax la yiraahdo in lagu kala baxo haddaba maxay arintaasi tahay waxaan idin sheegay qaar kamid ah magaalooyinka Minneapolis ay kamid yihiin iyo St. Paul in ay leeyihiin ranking Joyce Floyd kaasi ranking Joyce Floyd ka waxa la yiraahdaa shalay markii dadku codkooda ay dhiibanayeen waxa ay waraaqda ay codkooda ku dhiibanayeen ku qornaa qof kasta magaciisa waxa ku hor qoran hadda number 2 ka soo qaad Jacob Frey ayuu ahaa number 2 waxa loo codeynay Umar Fatix number 3 Diwan Davis ayaa loo codeynay mid kasta marka 5 dhibcood ayaa ku hor taalo marka aad codeynaysay waxa qofku uu dhahayay dooqeyga koobaad ee maayarka Minneapolis kaba soo qaad waxa ah Jacob Frey laakiin dooqeyga labaad waxa ah hadii Jacob Frey uu guuleysan waayo waxa ah Umar Fatix kaba soo qaad qof kale ayaa wuxuu yiri dooqeyga koobaad Umar Fatix ayaa ah dooqeyga labaadna waxa uu yahay Jacob Frey marka hadda shantan musharax ee ugu horeysa musharaxa codadka yar oo ugu yar helay isagu meesha waa uu ka baxaya marka afarta ugu sareysa ayaa codadkoodii tirinta dib loogu laabanaya marka dadkii hadda kaba soo qaad ninkan Diwan Davis ka oo u codeeyay oo isagu 14% helay hadii dadka isaga u codeeyay ay dooqa labaad ay ka dhigteen Umar Fatix codadkiisii waxa la siinayaa Umar Fatix hadii sidoo kale ninkan Jas Hampton oo isaguna kaalinta afraad galay hadii ay yiraahdeen dooqeyga dadka u codeeyay ninkaasi hadii ay qoraaqda ku qoreen codeynta dooqeyga labaad ee maayarka magaaladu waa Jacob Frey ayaa codadkiisii la siinaya marka tirintii codadka ayaa dib loogu laabanaya
waxaa la fiirinayaa musharaxiintan iyay dooqa labaad ay ka dhigteen, iyay dooqa saddexaad ka dhigteen, iyay dooqa afraad ka dhigteen. Kaba soo qaad hadda Cali iyo Faarax iyo Cabdi iyo Jaamac iyo Cumar tartamayay. Marka qofkan dadka codaynaya waxay yiraahdeen dooqiga koobaad Cali ayaa ah, dooqiga labaadna Faarax ayaa ah, dooqiga saddexaadna Cumar ayaa ah. Marka qaabkaasi ayay noqonaysaa ilaa iyo musharaxiintan mid ka mid ah 51% codadkaasi uu helo, arrintan waa ay soconaysaa. Marka waxaa laga yaabaa toddobaadkan oo idil inay qaadato ilaa iyo Jimcaha, Sabtida ama Axadda in la isla gaaro ayay u muuqataa tirinta codadka in dib loogu laabanayo. Marka ma jirto hadda labada musharax ee Jacob Frey iyo Cumar Faatix musharax guuleystay ma jiro, walow hadda codadka ugu badan doorashada uu helay ninkan la yiraahdo Jacob Frey, laakiin codadkiisu ma aysan gaarin 51% amaba 50 ma aysan gaarin. codadka la dhiibtay kala barobar waa in uu musharaxu helaa si uu ugu guuleysto. Hadda Jacob Frey 4 sano ka hor mar labaad markii la dooranayay sidan oo kale ayaa dhacday oo waxaa lagu kala baxay ranking Joyce Vote-ka. ninkan hadda markii saddexaad ayuu doonayaa Jacob Frey inuu mayor ka noqdo magaalada Minneapolis ilaa iyo 2018 ayuu mayor soo ahaa. xilka mayornimadu waa 4 sano, 4 sano kasta doorasho ayaa la galaa. Marka maadaama doorashadiisii ugu dambeysay 4 sano ka hor sidan lagu kala baxay oo uusan codad ku filan uusan haynin, haddana mar kale sidii ayay noqonaysaa oo tirintii codadka ayaa dib loogu laabanayaa oo ma jirto hadda Cumar Faatix lagama guuleysan. dad fara badan ayaan waxaan arkayay Jacob Frey ayaa guuleystay, maya ma uusan guuleysan. labada musharaxna caawa markii ay codadkii tirintii ay dhamaatay oo taageerayaashooda ay la hadlayeen, mid waliba waa uu sheegay in aysan jirin cid guuleysatay laakiin rajo wanaagsan ay qabaan. marka wili Cumar Faatix rajo ayuu leeyahay haddii qaar ka mid ah musharaxiinta kale ee labada ah ee ku xigta labada horeysa ee Jacob Frey iyo Cumar Faatix waxay ku xiran tahay qofka dooqa labaad ay ka dhigteen markii ay codkooda siinayeen labadaas nin ee ka hooseysa Cumar Faatix iyo Jacob Frey. waxaan filayaa marka hadda arrintaas inaad ila fahanteen oo waxa la yiraahdo ranking Joyce Vote-ka oo gobollo badan oo Mareykanka ah ka jira. haddaba waa kan Cumar Faatix markii uu taageerayaashiisa la hadlayay isagoo u mahad celiyay dadkii ololihiisa ka qayb qaatay, waxana uu yiri ma jirta caawo qof wili guul sheeganaya. isagoo arrimahaas ka hadlayay waliba luqadda Englishka ku hadlayayna waxa uu yiri. So tonight this race is too close to call. And that's okay because every vote must be counted and reallocated. And the truth is from day one we knew what we were up against. 5 PACs, millions of dollars being flooded into the city. And this campaign has always belonged to the families from Camden to Central, from Lake Street to Little Earth. It's for the new immigrants navigating an unfamiliar land, and to the college kid counting nickels and dimes to grab a bite to eat between classes. This campaign belonged to all of us. waa kan sidoo kale Jacob Frey oo isaguna taageerayaashiisa la hadlay, waxana uu yiri wali ma jirto cid guul sheeganaysa laakiin inaga ayaa sareyna, codad fiican ayaan ku hogaaminaynaa, rajadeennana waa fiican tahay. isagoo taageerayaashiisa la hadlay Jacob Freyna waxa uu yiri. And in Minneapolis, guys, we can love one another. We can stand for something that is greater than each one of us individually. But there is something greater about this city as a whole, where no matter whether you have a different perspective or a different background, you can say, hey, you know what? We can work together, we can do the right thing by our city, and we can stand up for one another in the process. And so, nobody's declaring victory tonight, but what I will tell you is we are well in the lead and we are well on the way. And we are super excited about where this city is going. So thank you so much, everybody. sidoo kale dhinaca California su'aashii ahayd Proposition 50 oo ah in 5 degmo oo xisbiga Republicanka xubno kuwada baarlamaanka aqalka wakiilada laga soo dooran jiray hadda kadib dimuqraadi laga soo doorto oo shacabka California ha iyo maya ay u kala codeynayeen, ha ay u codeeyeen. arrintaasina waa ay baastay in gudoomiyaha gobolka California Gavin Newsomna aad ayuu u soo dhaweeyay. hadda kadib marka 4 ilaa iyo 5 xubnood oo dheeraada ayay ka heli doonaan aqalka wakiilada xisbiga dimuqraadiga oo gobolka California laga soo dooran doono Texas, sidii ay sameeyeen oo kale ayay noqon doontaa maadaama 5 xubnood oo dimuqraadi ah ay dhinaca Republicanka ay u weeciyeen.
garoonka Mohamed Ali International Airport oo ku yaala magaalada Louisville ee gobolka Kentucky galabta waxaa ku gubatay oo ku soo dhacday diyaarad ay iska leedahay UBS xarunta ugu weyn ee UBS-ka waxay ku taalaa Louisville Kentucky 7 qof ayaa ilaa hadda ku dhimatay ayaa la leeyahay ilaa 5 mayl dadka ka agdhow waxaa la yiri guryihiina ha ka soo bixinina diyaaradaasi ilaa 38,000 oo tan oo shidaal ayaa saarneyd maadaama Louisville ay ka duuleysay oo ay ku socotay Honolulu Hawaii isla markaana ilaa 9 saacadood oo safar ah ay ku tagi lahayd diyaaradda ilaa hadda waxyaabaha saarnaa lama oga laakiin qiiq iyo holac badan ayaa la arkaya oo ka soo baxaya 7 qof ayaa ku dhimatay ayaa la leeyahay 3 qof diyaaraddu xamuul ayay ahayd oo shacab ma aysan sidin oo alaab ayay sidin laakiin alaabta ay sidin wax kiimika miya waxyaabo kale ilaa hadda lama oga laakiin kooxaha gurmadka ayaa halkaasi tagay iyadoo sidoo kalena diyaaradaasi gabi ahaanba ay burburtay oo qiiq iyo holac badan laga arkay airportka Mohamed Ali oo feeryahankii muslimka ah ee Mareykanka loogu magac daray gabi ahaanba waa la xiray oo ma aysan jirin diyaarad ka soo deganaysa oo isla markaana ka duuleysa arintana waxay dhacday 5 ilaa 15 daqiiqo galabta shalay galab welina baaritaanka waa uu socdaa iyadoo hadda FAA-da iyo sidoo kalena NTSB-da ay baaritaan ku sameynayaan sababta keentay diyaaradaasi isla markii ay hadaba inay dhulka ku soo dhacdo isla markaana burburkaasi uu soo gaaro waxyaabaha ka soo kordha haddii alle idmo arrimahaas iyo doorashooyinkaba waa idila soo socodsiin doona aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idinla sidaa iyo nabadgelyo